بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta ugu soo noqday oo u soo galay waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinkii uu ka hadlay xildhibaan Odowaa shalatoole ee baarlamaanka ee baraha bulshada la isla dhex maraayo in ay qalad ahayd inuu ka hadlo Odowaa qalbi dhagax uusan ka hadlin الله naxariistay marxuum Saraaji ay dadka bulshada baraha internetka iyo isla dhex marayaan waxaan rabaa marka in aan iraahdo Allah naxariisto wasiirka jannada Allah ka waraabiyo laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo tiisiya gashay waqtigii Ilaahay ugu tala galay intaasay ahayd inaad inta soo xirtaan dad aad baraha bulshada aad tiraahdaan maxaa dhahdaayo to lagama hadlin xildhibaan waa ahaa wasiir Saraaji lagama hadlin aad ugu qaldantihiin wasiir Saraaji dabadiis meeqa dhimatay imisa dhimatay kumaan kun oo qof dhimatay gadaashiis 14 October ka dambeeyay 18 October ka dambeeyay dhalinyaradii askarta ahaa ee bariir ku dhintay ka dambeeyay haddaysan ahayn maalin bacid aad jiheynaysaan farmaajo iyo qayro oo maalin binta ciyaal yar lacag soo siisaan aad leedihiin maxaa tiraahdaa to yaan la hadlin yaan la dhawaaqin kii hadlaba oo maxaa dhahdaa to qabiil ah aad qabiil isticmaalaysaan oo beela beegsanaysaan oo leedihiin ninkii hadlaba beeshaas u hadlay ninkii hadlaba wuxuu waa beeshaas waay aad leedahay horta waxaad ogaataa jiheynta aad dadka jiheynayso dadku waa ku ogaad inaad jiheynayso dadkan baraha bulshada aad ku soo daysay lacagta yar inta la siiyo $100 iyo $100 ku shaqaynaya baraha bulshada inta soo fadhiista laba qof oo la isi siisan nin marxuun oo waa hore dhintay inta la soo saaro meesha sawirkiisii xildhibaan Odowaa la soo saaro xildhibaan Odowaa dambi ma gelin ninkaas nin tiisi gashay oo waqtigiisii intaas uu ka ekaayo ahaa laakiin ninkan waa nin nool oo cadow faraha loo galiyo waay horta Soomaaliya waxba yeesay kin darsan waxaan isku meel joogayaan isku meel soo dhigay marxuumkaas waa dhintay kas kuma dhimana kama oo ku dhintay nin kama ku dhintay ee aan kas lagu dilinin imisa kas ku dhimatay Muqdisho ee kas lagu dilay ee intii kas lagu dilay ee xataa la xirin dadkii dilay la yaqaanay qaar madaxtooyada ku jiraan farmaajo ninkii uu dardaray ciidankiisu ay dardareen ilmihiisii iyo dadkiisii waa joogan Muqdisho ninkii dardaray ee falkaas sameeyana wuxuu joogaa madaxtooyada uu joogaa maxaa loo soo xiri waay waxa ku soo haray waxa tiraadeen Saraaji Allah u naxariisto waxa way maanta qofkii oo qabri ku jira qabrin kaga jirila ee ummadii ka dambeysay ee baabadan aan laga hadlin because ummadii ka dambeysay waxa looga hadlaynin oo aan loo sheegayna halkiisu waa beesha la beegsanayo waa beesha fartan kugu fiiqanta beeshu dad ay leedahay beeshu iskama joogto farmaajo iyo qayr laaw waxaad ogaataan dadka inta kolba soo jiheysaan ninkii ay ka bilaabato waay jiheyntaanu horta koob waxay ka bilaabato qalbi dhagax marka shalay toole markay inta xildhibaanadii isxil qaameen ay ogaadeen inaad adinku disheen ee la soo ogaadeen madaxtooye ay gashay ee xildhibaanadii ka fadhiisteen ee aadii adinka infuushay baad waxaad tiraadeen bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ee qalbi dhagax shalay u kacay maanta waxaad tustaan baraha bulshada ka tustaan in qalbi dhagax ninkii u dooday uu qaldanaa Odowaa ma qaldanayn Odowaa waa xildhibaan qaran ma ahan xildhibaan qabiil markuu joogo baarlamaanka uu dhex fadhiyo wuxuu ka hadlay in uusan raali ka ahayn dhiibistii qalbi dhagax in uusan raali ka noqon doonin qof Soomaaliyeed in la dhiibo in uusan raali ka noqon doonin wadankiisa in la gato ayuu sheegay Odowaa qalad kuma hadlin Odowaa wuxuu sheegay ilmihiisii iyo naagtiisa in uu asagu gunadiisa oo mushaarkiisa uga goyn doono sheegay qalad ma uusan sheegin wax la isku soo barbar dhiga marxuumkii dhintay iyo qalbi dhagax dadkii baraha bulshada aad farmaajo ku soo yaacisay tilaabada qaadaba ceeba kaaga socota tilaabadii aad qaado waa ku ceebowda midaana
masawirkii waxaad is soo kor saarteen marxuumkii iyo waxa la is soo kor saaray iyo masawirkii odawaa la is soo kor saaray odawaa dambi ma gelin dambiilana maaha farmaajo dambiiluhu waa adiga waxa ku soo hara dadka buunbuuninaya marxuumkii oo buunbuuninaya marxuumku qabiil uu ka dhashay ninka kama alu wax ku dilana qabiil buu ka dhashay diinta muslimkana ma qabto qof kama ku dhintay in la dilo diya aad diideen inaad qaadataan meeqa annaga raxan way naga dishay imisay raxan way naga dishay ee ku jira xabsiyada ee in la toogto ay ahayd ee aan la taaban kumaan kun marka waa in Soomaaliya waxaan leeyahay baarlamaanka rabaa inaan u sheego dastuurka waa inaad ku soo dartaan dastuurka Soomaaliya lagu soo daro ninkii kama wax ku dila iyo ninkii kas wax ku dila labadaba in la toogto annagu waxaan la qabnaa kuwa xabsiga ku jira ee dadkeenii dilay ee aan kama ku dilinay kaska ku dilay ee maalin ilaahay keeno boqolaal dilay ee xabsiga ku jira ee aan toogna lagu xukumin maxkamadna la soo saarin kuwaasoo kala mid yahay ninka la yiraahdo dable caydid oo kala mid yahay banaanka inta la soo dhigo hala toogto ayagana laakiin inaad tiraahdaan shala markii qalbi dhigax laga hadlay aad baraha bulshada aad ku soo wada yaacdaan oo tiraahdaan odawaa kama hadlin ninka la yiraahdo marxuumkii kama uusan hadlin odawaa siraaji kama hadlin wasiir siraaji kama uusan hadlin wuxuu ka hadlay qalbi dhagax aad u qaldantiin qaladkaasna waxa adinka in soo diray adinka ma aha dadka bulshada kula wareegaya facebookyada iyo baraha bulshada iyo kula wareegaya dhibka ayagu ma lahan ayagu $100 ay shaqaysanayaan laakiin dhibku wuxuu ka yimid waa farmaajo iyo qayre farmaajo iyo qayro dadka 4 saac adiga farmaajo ninkii aad dishay ee adoo lagu wado ciidankaagu uu dardaray wuu kula joogaa maanta soo qabatay kas ayna ahayd kama ma ahayn ma toogatid dable caydid laakiin waa la tooganaa asaga because waa beesha la beegsanayo odawaa wax dambiyo leeyahay malaha odawaa waa xildhibaan Soomaaliyeed waa xildhibaan qaran odawaa been ma ku sheegay shalay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa u riyaaqday waa nin raga oo cadkiisa goosan kara farmaajo raganimada miyaa kala dagaalamay qayr ma raganimada kala dagaalamay ilaahay baa siiyay bili aadan ma siin rabbiga casiiska ayaa siiyay inuu inta soo istaaga meesha oo waxa tihiin sheego oo yiraahdo hadaad dhiibteen iyo hadidna dhiibin ee xukuumadda inta ka hooseysa dhiibtay intuba nama matalaan miyaad ku keenteen marka baraha bulshada inaad ciyaalka yarka ku soo yaacisaan oo aad tiraahdaan ninkii dhintay wasiirkii dhintay maxaa dhahday to kama uusan hadlin wasiirka dhintay muxuu uga hadlay meeqa dabadiis dhimatay ma ka hadashaan aawe 14 October ma ka hadashaan baraha bulshada dadka wareegayo 14 October 2000 qof ay dhimatay iyo kumaan kunkii dhaawac ahaayeen meel haysanin maxaad uga hadli weyseen 70 qof 28 October dhimatay maxaa uga hadli weyseen marxuum waa hore dhintay ee shakhsi ahaa kaligiis ahaa waa adinka meesha soo dhigaaye ma dadku ma waxaad mooday inaysan waxba ogeyn masaakiinta aan waxba ogeyn inta facebookyada iska soo gasha iska hadasha inta iska qarsta allah ninkan walaalkeen oo la dilay ninkan waa dhintay allah u naxariisto waqtigiisii intaas ma dhaafeen dable caydida ilaahay ku sababay kama uu dhintay kas uma dhiman dable caydid haduu kas u dilay isma keenan asagu kama uu ku dhintay marka kama iyo wixii ku dhintay iyo wixii kaska ku dhintay intaba aan ogaanay baarlamaanow ku dara annagana hana loo dilo inta ku jirta xabsiga dhex joogta iyo inta banaanka joogta intaba la soo qabto laakiin inaad waxaan meesha joogin aad meesha keentaan farmaajo oo kolba maalin cid qolba dhinac u jihaysaan dadka ha isku dayinina jiha ma noqonayso siraaji oo mar hore dhintay jiha ma noqonayso tiisiyaa gashay baraha bulshada ciyaalka yaryarka lacagta soo siinaysaan raadiyaasha idaacadihii Muqdisho dhan oo aad lacagaha siinaysaan leedihiin beenta sheega beentu meelay gaarayso male beentu waa wax yar waay beentu ma badna beentu luga badan male waa dhamaanay beenta adinka ku soo dhamaanay jihayski ninka la yiraahdo qalbi dhagax kolba dhinac yuusan inka tusin
qalbi dhagax Soomaali oo dhan u istaagtay qalbi dhagax qaladaad ku dhiibtay qalbi dhagax cadawaad u dhiibtay laakiin ninka la yiraahdo dable Caydiid adinka gacantiina ku jira amxaara ma jiro nin adinka gacantiina ku jira baad baraha bulshada waxa soo dhigaysaan hebel ninkaan dilay ma la dilo ma la yeelo ma laga dhaca soo galinaysaan war waxaan in soconaynin baraha bulshada ha keeninine beenta ciyaalka yareerka baraha bulshada ha u soo horseedinine waxa reality-ga ka hadla reality-gu waxay tahay inaad iscasishaan waad ceebowdeen inaad meesha isaga tagtaan dadku waagi hore waxay dhihi jireen baraha bulshada ha la iska daayo laakiin waxa la ogaaday waxa dhan oo adiguba aad ku timid farmaajo ah inay tahay baraha bulshada ee cid Soomaaliyeed ku dooran lahayd aysan jirin baraha bulshada soo fadhiisatay baraha bulshada dadkii waxa tiri la yiraahdo farmaajo iige maxaa ka dambeeyay farmaajo iige ka dambeeyay ha igeeye farmaajo iige ha igeeye Itoobiya ha igeeye kaaga dambeysay cib iyo fadeexa intaas kuugu filan inaad dhulkii Soomaaliyeed maalin walba gadato dadkii gadato wax aad hambaynaysid oo Ilaahay abuurta lama arka farmaajo maanta bari waxaad u socotaa Emirates waxa soo gadanay Boosaaso soo gadanay dekada Boosaaso next Muqdisho waay next Kismaayo waay next inta Soomaali ay joogto waay badina gado dadkiina gado laakiin waxaad ogaataa dadka iyo badaha iyo maxaa dhahdaayto iyo meel walba in ay xildhibaanada Soomaaliyeed ee maanta inta ku jirta shalay ka kacday qalbi dhagax ka kacday inaysan ku daynay xildhibaanada waxaan rabaa inaan iraahdo on halkaan aan ka iraahdo nimayow intii shala hadashay iyo intii yeestiri intaba waxaan rabaa inaan u sheego nimankii wax dili jiray ee madax jabiska ahaa waxay ku jiraan madaxtooyo asasiina la in sameeyna برينا وحالين ليه وكده بجرنا إلا قفكي ما أنت دينتا بري وحالي هذا وكده بجرناه قرحي ما أنت دعا بري وكده بجرناه وحي يرقى صومالي ما أنت كدعا بري وكده بجرناه لوليه ده بجركم مرة ماذا لما ساقبت واحد أنت لساقبت اللي استاجي بنا اللي استاجي اللي هذا قفك أنا واحد سميه قفك أنا واحد قال ما جرته وكده بجرناه له وكده بجرناه مركب بريه سن كدعي وكده بجرناه نيو البو صدق من هداد وطي أفر من هداد وطي أنت كبت ستيد أو لواتن كنيجتيد إسكعلي يعني منك أي سنة هاين واحد قشان ماشي اللي هذا ماشي صومالي اللي بحكم حتى مدحوينهم مجلي كرو رئيس الوزراء مجلي كرو سوقنا نجي قديمكم حالنا أنت إسكعدان إسكدي بحالنا واحد ترعدان مركب برلمان شرنا هالكاسن كسر بحينا أنت برلمان أوسو شرنا حالنا ده بدأ قشطة والله بالله يطلع إني سندافي waxaa ku jira madaxtooyo ninka la yiraahdo Muqtaar Roobo waxaa ku jira Faad Yaasiin waxaa ku jira Farmaajo waxaa ku jira Qayre waxaa ku jira Sakariye alqaacida kale oo jirta alqaacida kale oo jirta miyaa jirta waxaan rabaa kale in ummadda Soomaaliyeed ay ila sheer garayso waxaa dhacay qarax 14 October qaraxii maalintuu dhacay ee 14 October waxaa jira nin la qabtay ee telefonka watay marna sii socday marna soo socday fiidihiisa la soo dhigay baraha bulshada ee la yiri wuxuu wada noohadii rabtay inay gadaal ka samayso waxaan rabnaa waa tii la qabtay markii la qabtay ee wasiirka amniga uu lahaa hadduu is xasuusto wasiirka amniga uu lahaa ninkan ayaan ka helaynaa wixii macluumaad ah uu asaguna qirtay in uu ahaa kuwii la socday baabuurka ninkii asaga ahaa waa la daayay dib dambe waxay yiri bulshada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan hort keenaynaa wiil wasiirka amniga way ma aragteen waa la sii daayay afar wiil la soo qabtay afartii wiil la soo qabto hadda baraha bulshada taala afartii wiil la soo qabtay oo hadeertaan meel kasta saaran afartii wiil waxa la yiri laba wiil mid waxa waaya la yiri madax jabiska midna waxa waaya la yiri abniyaadka labadii nin labada kaleetana waa iska malaha tayran marka labadii ayaga ahaa baa waxa la yiri waxay soo daayeen baabuurkii qaraxa ahaa ee maalintii 14 October soobo labadaas nin soo deysay labadii nin soo deysay marka ee midna uu ahaa abniyaadka midna uu ahaa madax jabiska
soo daayay baabuurka ka soo daayay controlka ka soo daayay war Soomaaliyeed waxaan rabaa in la iiga jawaabo labada nin soo daysaa leeyahay labada nin marka soo ma dawladday ka tirsanaayeen ninkii BBC-da maanta laga wareysanay waxa leeyahay ma dawladday ka tirsanaayeen leeyahay wuxuu yiri maya seebay u soo daayeen baabuurka inta controlka tageen ayadoo la raadinayo uu ninna yahay madax jabis ninna uu yahay maxaa dhaay abniyaadka uu haysto suu inta u tagay controlka uu u soo daayay nimankan waxa la yiri labada nin dawladday ka tirsanaayeen at the same time dhinaca kale waa ka tirsanaayeen marka soo in macadda labadan afartan wiil ee masaakiinta meelaha la wado in ay ayaga kamid ahaayeeno ayaga ay ku jireeno wasiirka amniga waa hadli waay BBC marka laga wareystay kii kale agaasimaha ahaana waa hadli waay because waxay ku hadli waayeen oo dhinac loo bixiyo la waay war nimankaan ma dawladday ka tirsanaayeen say u soo daayeen intay controlka tageen oo ciidamadii Soomaaliyeed controlka joog ugu tageen ay u yiraahdeen baabuurka noo soo daa annaga mas'uulka soo nimankii la raadinaya maaha nimanka mas'uulka noqday marka waxaad ogaataan wax cad waay ayaga la isfashilinayo marka fashilku ayaga isku wada talaabada ay qaadaanba waa fashil ayaga BBC isgeey ayaga yiri wareysana laga qaado ayaga nimankaan ay soo galiyay baraha bulshada at the same time meel ay u saaraan male waa ceebtooda cirri laacda alla ka dhiga waxa cadaatay marka in ayagu ay u direen nimankaanuna ay kamid ahaayeen dawladda qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho inay kamid ahaayeen ayaa cad waa nimanka baraha bulshada la ordaay la dhex ordaay Soomaaliya isaas u ogaada oo maanta intaan in leeyahay inta BBC-da maalinkii laga wareysanayo tix raacdaan oo dhageysataan horta bal isku miisaantaan warka uu ku hadlaayo ninku warka uu wasiirku ku hadlaayo isku miisaama and then kula soo noqda baraha bulshada taasna halkaasaan leeyahay sharmaarka cid walba kolba dhinac dadka ha u jihayn dadku waxay rabaan ee wasiirka amniga looga fadhiyaa maxaa adiga lagaaga fadhiyaa ra'iisul wasaaraha looga fadhiyaa bal afartan nin soo macneeya oo macnaha hadda aad ku sheegteen inta ka gadisaan macna kala keena macnahaas ma socdeen macnahaas waa dhamaaday mid hadda cusub bal u soo sameeyay tayral cusub u soo sameeyay taytarkaas waa dhamaadeen annagu meelan in raacnaan aqoon laana shacabka Soomaaliyeed way ku wareereen ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta dal iyo dibad way ku wareersan yihiin wax alla waxaad sheegaysiin iyo wax alla waxaad ogtihiin midna ma lahan dawladda buuxda dawladdii maxaa dhahdaayto oo alqaacida ka buuxda dadkii la laynaayo dadkii oo la gadanayo dhulkii oo la gadanayo hadda beec mushtarku wuxuu ka socdaa dadka iyo badda iyo dhulka ka socdaa beec mushtar kale oo yaala ma laha meesha dawladda ma joogta niman beec mushtara ee isku yimid ee raba inay wadanka dadka joogana gataan oo dhameeyaan oo dawladda kala gacanta u galiyaan oo ayaguna markaas ka siibtaan xoogayga sarka la siiyo jeebka ay ku shubtaan wixii yaraa ee maaldhowta la keenay ee dawladuhu soo yaboohdeen ay soo baryeesteen ay salada dhigteen ee dadkay ku soo baryeesteen xataa aysan siinin taasaa ku cad inaysan qarannimo Soomaaliyeed meeshaan aysan jirin ee isku yimaadeen afar nin ee shirka ah ee u shirkowday in ay maxaa tiraahdaa reer Muqdisho wax kale uma aysan shirkoow reer Muqdisho u shirkoobeen farmaajo wax kale meeshaan kuma imaanin faalow ku yimid faalow waa soo faashaday farmaajo waa soo faashaday midiyaha isticmaalay meel kastoo tagay shimbir cadow noola yimid isagoo shimbir cad wato noo yimid Muqdisho noo yimid oo ka soo dagay marka shimbirta cad waa buube farmaajo dad buubiyaa jooga ummadda Muqdisho sixir ma qabto faalow reer Muqdisho waa ka xijaaban yihiin waxaas ma isticmaalaan hawiye ma yaqaan waxaas soo waxa faantama guriga aad joogto adigu malihide farmaajo ummadan aad beegsanayso iyo ummadan aad raadinayso inta iska daysid waxba kuuma yaalaan meesha fadeexa ka raacday alqaacidada aad leedahay waa la dagaalama adaa ka koobe adigan iska ka cilinina kula dagaalamayna isaga tag meesha intaan lagu dilin on hilibkaaga lagu goobayn meesha isaga tag waa mahadsantihiin thank you so much have a nice day